xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay warmurtiyeed ay xalay toole dawladda Djibouti soo saartay kaasoo ay ku sheegtay inay ka soo baxeen shirkii Djibouti ku dhexmaray Somaliland iyo Soomaaliya waxaanu xogayuhu sheegay inay Somaliland qaaday tallaabooyin mar kale la isugu darayo Somaliland iyo Soomaaliya sidaynu saaka kuwa barisanaynu aragnay waxaan la soconay in shir Djibouti uu ka dhacay oo Somaliland iyo Soomaaliya ay ku lahaayeen oo beesha caalamka iyo dawladda Djibouti wadamada gobolka qaar ka mid inay joogeen shirkaas sidaynu la soconay heshiis ka soo baxay hore oo layna tusay ma jiro saxiixi iyo wixii aynu habeenkii daawanay sida xaqiiqadu ahayd waxay ahaayeen minutieskii shirka lagu galay oo la saxeexay in minutieskii shirka ahaayeen heshiiskii rasmiga ahaa ama communiqueegi shirarka marka la gala la soo saaro waa communiqueega ilaa xalay saacadihii dambe ilaa saaka ina soo gaaray marka fursad hore oo ma jirin wax lagaga yiraahdo laakiin maadaama maanta communiqueegi deyn hor yaalo waxa furan fursad wax lagaga yiraahdo waxaan isleeyahay communiqueega qofku markuu akhriyo su'aalo fara badan baa maskaxdiisa soo galay oo u baahan in xukuumaddu dadka si fiican uga shaafiyeesho oo ay uga hadasho afar qodob oo waaweyn buu heshiisku amaba communiqueegu ka hadlaya afarta qodob marka waa inaan isweydiina halkay inagu wadaanay inagu riixayaan inagu leergaraynayaan macnahooda iyo nuxurkoodu muxuu yahay marka service-ka sare iyo muuqaalka sare ee kelmadaha laga tago maxay buu yahay marka su'aasha koowaad ee manasaba waxa weeyaan shirka waxay noogaynu 18 bisha soo dhamaaday shirkii 18 bisha soo dhamaaday maxaa 22 bisha soo saaray communiqueegiisi ma WhatsApp-ka lagu sii xiriirayay ma wada hadalla aynaan ogeyn baa socday maxaa la qarinayay maxaa la qoosheeyay mise dabaaldegii iyo guulbeenaadkii la doonayay in la inoo sawiro ayaa dib looga dhigayay xaqiiqadu marka ay soo baxdo oo dadkan ayaa dad la bartay oo la fahmay oo la daraaseeyay taasi waa su'aasha koowaad ee u baahan inay xukuumaddu ka jawaabto oo maxaan ku dhahdaa mar labaad madaxweynuhu gaadhiga u soo koro arinta labaad ee iyaduna arrimaha u baahan in laga hadlo ee laga jawaabo waxa kamid ah afar wax baa la yiri waa laga hadlaya oo meesha lagaga hadlo mid waa arrimaha maamulka hawada midna waxa weeyaan arrimaha dhaqaalaha midna waxa weeyaan arrimaha isdhexgalka isdhexgalka erayga aad u dhageysta isdhexgalka maxay macnaha dhadhamiyo oo macna nooc ma ayay leedahay meenu isdhexgalanaa mise waynu kala guranaynaa ujeedada ay madaxweynuhu tagay wafdigeenu meesha ay u tageen maalintii markii wasiirka hawlaha guud wasiirka Saciid Sulubu hadlayay waxa uu ka hadlay oo sheegay in ay qodobka diideen in la isdhex galo maxaa maanta qodobkii ku soo daray ee communiqueegan hadda la inoo soo saaray ku soo daray asalan ba hadaad maqashaan federalism waxa la yiraahdo qeexitaankiisa iyo macnihiisa rasmiga ah ee uu leeyahay waxa weeyaan in waxna lagu la maamulo waxna Soomaaliya ay gaar u maamusho dawladda dhexe ee wadankaasi uu leeyahay wadanku doonaha noqday inay wax maamusho dawladaha kamidka ah ee dawlad goboleedyada kamidka ahina ay wax la maamulo marka waxa laga hadlayaa dhaqaalihii in la wada maamulo waxa laga hadlayaa hawadii in la wada maamulo ama sidan loo dhigay ha noqoto oo ha noqoto in hawada Somaliland iyo Soomaaliya isku jirta la wada maamulo ama ha noqoto hawadii Somaliland hal la wada maamulo waxa weeyaan oo sida wasiirku sheegay uu yiri khada madbiciya baa dhacay taasoo aynu sugayno in dawladda Djibouti ay soo cadayso oo aanay wali haynin laakiin tiise arinta muhiimkii waxa weeyaan maxaa la wada maamulaya maxaa kalifaya in la wax wada maamulo wadamada dunidaynu naqaan ee wadamadoodii ka go'ay dariiqyo noocan oo kala miyay mareen mise waa dariiq cusub oo inagu aynu jeexayno arinta marka la leeyahay isu socodka iyo isdhexgalka iyo waxa la xoojinaya oo kor loo qaadaya waxyaabaha aan siyaasiga ahayn xaaladii baa la caadiyeynaya waana istabta koowaad ee marka wadamo la midaynaya la maro waa dariiq caalami oo yaalo oo la yaqaano maaha wax cusub oo imika halkan lagu ixtiraaqay oo la sameeyay wadamada dunida ujeedadoodu ay tahay inay mustaqbalka noqdaan hal wadan oo kaliya ama nidaam federaal ay sameystaan halka ay ka bilaabaan waa isdhexgal baa la yiraahdaa isdhexgalka waxa laga bilaabaa meelaha fudud ciyaaraha laga bilaabaa waxa laga bilaabaa arrimaha dhaqanka laga bilaabaa arrimaha
maxaa kuwaasi aynu wadamada kale ee jaarkeena heshiis noocaas ula gali weyne aynu Soomaaliya ula galayna waxaan leenahay oo aan doonaynaa xukuumadda aan u soo jeedinaynaa arrintan waxay u baahan tahay in la cadeeyo arrintan waxay u baahan tahay in laga daayo muhmalka iyo muuseynta iyo daditaanka in laga daayo arrintan waxay u baahan tahay geesinimo iyo in dadka runtu waxay tahay loo sheego laakiin arrinta u baahan in la ogaado waxa weeye waxa la leeyahay aan wax wada maamulo macnaheedu meel buu ku socdaa shacbiga reer Soomaaliland marka waa inay taa ogaadaan waa inay caadifada iska daayaan waa inay iska daayaan in la xamaasad geliyo tio aan wax guulaha loo keenay aanay jirin tio isdhexgal iyo sport iyo in la isu socdo laga hadlaayo oo xiriirkii la caadeynayo inaan haddana la oran halka u socoteen waa halka oo aan maalin ban nin meesha u socdeen aanu isagu farta ugu fiiqana ay iyagu bartaan waxay doonayaan iyo halka u socdaan